kan waxaa lagaga hadlayaa suuqa xorta ah ee Afrika waxaana isugu yimiday dad badan oo dibadda ka yimiday oo martino ah annaka rugta ganacsiga ee Djibouti iyo rugta ganacsiga ee Afrikaanka ee sanadkan aan madaxa ka ahay ayaa iskaashatay si ay u wacyigeliso baamishirka amba dadka shirkadaha gaar kale in aan ka qayb qaadano suuqa laga hadlayo leeyahay milyaar iyo 200 milyan oo qof ayaa la isku gudbin karaa Afrika gudaheeda wixii badeecada amba wixii maxaan ku rahay baamishir la isku gudbin karaan si ay wada shaqaysan karaan ayna isku weydaarsan karaan wixii khibrada ay leeyihiin shirkani wuxuu ka qayb noqonayaa shirarka ka dhaca Afrikada ee ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa mashruuca ah 2063 African Union ay qaban qaabiso oo ah in wadanadu ay horumarna ku sameeyaan si ay dadka ku nool Afrika ay u helaan nolol tan dhaanta shaqo laga abuuro horumarna laga gaaro arintaas waxay suurtagal u noqonaysaa horta in dadkii ka shaqaysanayay Afrika oo ay baamishirka ahaa ay sarkaan ay ka xaajoodaan iska maxaan ku rahay arkaan waxyaalihii ay ka jiraan carqalad ay ka jirto taana waxa la kaashanaya madaxda maxaan ku rahay wadanada Afrika oo ogtahay wadankeenu wuxuu noqday kii ugu horeeyay amba waxaan oran karnaa wadanada ugu horeeya ee Afrika ee isku gudbiyay wadan kale dhaqaale ahaan dad ahaan si loo wada shaqaysan karo taabaana la doonayaa inay 55 wadan ee Afrika ku yaali ay ka faa'iideystaan haduu alla yiraaho sanadada soo socda si suuqaasi barwaaqo sooranka ee Afrika uu noqdo suuq dadka maxaan ku rahay horumar gaarsiiyo baamishirka gaar ahaan horumar gaarsiiyo bulshada horumar gaarsiiyo wadanadana dhaqaale u sameeyo